maalmahan bulshada dhowr arrimood ayay aad iyo aad uga sheekaysataa oo aad iyo aad loo hadalhaya mid waa furista axsaabta midna waa khilaafka golaha ta axsaabta furdeeda haddaan ku horeeyo dalkeennan sharciga ku dhaqma dastuurka iyo xeerarkii ay golaashu baaskareeyeen bayna hogaamiyeen furidda axsaabta qofna kama goyn karo qofna kama hadli karo waxaynu raacaynaa oo guddoona xeerka fooliin oo sharci ah labada golood soo ay baaskareeyeen madaxweynuhuna saxeexay ayaa dhaqangala xeerkaasi tallaabooyin buu ina farayaa wuxuu ina farayaa doorasho walba waktigeeda in loo diyaar garoobo siday u qabsoomi lahayd sanadka dambe waxay nagu soo beegan laba doorasho inta December ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta axsaabta waxa iyaduna sugaysa oo sharcigeedu dhamayna ay tahay golaha guurtida oo in badan joogay ayaa isna u baahan in hawshiisa galo waa muddo gaaban oo doorashooyin nagu soo beegan xeerku wuxuu ina farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10kii sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10kii sanaba mar maanta saddexda xisbiye jooga waxay kaga dhamaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhamaanayaa 26 December 2022 sida uu qeexayo xeerka 14 wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhamaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26 December 2022 in 6 bilood ka hor la furo ururada in la ogolaado in la furo 6 bilood haddii 26 December 2022 laga soo bilaabo waxay ku soo beegmaysaa May 2022 sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeerku sheegay bisha May 13 haddii Ilaahay yiraahdo xisbiyadu waa la furayaa nin walba ku biicad xeer baa furaya qofna ma hortaysan karo laba xisbiyada qaranka waxaa ku waajiba in aanay ka doodin furidda axsaabta waayo waa sharci maanta guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu yidhi xisbiyada in furo waan ogol haddaan maxaa lagu murmayaa dadku wareeraya sidaa sharciga hebel gelayna waxa kaloo iyana sharcigeenu ogol lahay waktigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo u diyaar garoobeedii iyaduna waa waajiba waktigeedaynu maraynaa oonu u diyaar garoobayna haddii Ilaahay yidhaahdo waxaa iyana loo diyaar garoobaya waktigeeda golaha guurtida oo bisha January 2023 ku beegan mar haddaynu sharciga wadada hayno garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiya mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo saddexdii doorasho midba waqtigeedii soo sharci jideeyay aynu u marayno diyaar garowno anigu waxa ku jira garan maayo waxa looga diday laba haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka guddoomiyaashoodu murashaxa Cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha inay u diyaar yihiin doorashooyinkii waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha wakiilada dad ka harsan ee guddoomiyuhu ka yahay hadalka aad tirahdeen ha ku dhaqmo oo ha u diyaar garoobeen furintii golayaasha qof walba waxa ku waajiban ixtiraamo sharciga u hoggaansamo khilaafka ka dhaxeeya golaha wakiilada ka hadli maayo waayo arrinta maxkamad bay u gudbiyeen arrin maxkamadu taalana ka hadli maayo waxaan saleeyahay murashax Cabdiraxmaan Ciro oo in badan xisbiga ka tirsanaa maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyaga ma shaqaynayana waa loo talinaya xaashaakada waa meel ka dhac xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan waa sharciga hal la maro anigu waxa qabaa inay golaha meel ka dhac ku tahay cidda aad ku eedeynaysan waxay la taayeen waa ku gaf adigana waxay Soomaalidu tiraahdaa Cabdiraxmaano beenaale iyo muhubsada waa walaale malaha beenaale ma tido odaybaa tahay malaha waan hubsan warkaas markaas soo baxay Cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddadii uu joogay isagoo cid aan golaha ahayn ku eedeynaya waxaan ku leeyahay
golaha wixii ka dhacay ninkii gabiye wuxuu yidhi tacabkii suldaan diiriyey iyo taladii migaagdhi adeer waa tacabkaagii iyo tuhunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxaa ka dhacay ee meel kale loo eersan maayo waxaan ku soo gabagabaynayaa qof walba waxaa ku waajiba inuu raaco sharciga oo aynaan sharciga baalmarin arrintaa laga doodina intaasaan kaga hadhayaa guud ahaan dadka somalilan waxaa ku dhiirinayaa inay u tashadaan qarannimadooda horumarka bahda ciyaaraha aad iyo aad baan u garab taaganahay dhalinyarada distoorkaana faraya dadnimadaana faraysa waa danteennii waxba ka akhrimayno sanadka maanta waxaa la ciyaaray 18 ciyaarood kubadda ah waxaa ka qayb galay 4,543 qof waxaa ku baxday lacag ku dhow $5 milyan saddexdii sano u dambeeyey wasaaradda ciyaaraha bajedkeeda marka lagu daro laga saaro badelkeeda waxaa ku baxay lacag 3 milyan iyo dheeraad oo ku kala baxay garoonnada ku yaala Ceergaabo Laascaanood Caynaba Buuhoodle Burco Berbera Maroodi Jeex oo dhammaantood mid la dayactiray mid la dhisay iyo mid qalab loo sameeyey dhalinyarada waxaasi waxaynu u weydisay dhalinyarada waxba kama aan akhrin waxba la akhrin maayo danteenu intay gaadho kolka laga reebay nabadgelyada marka laga reebiyo caafimaadka iyo waxbarashada oo idinku waxbarashada raacsantiin xagga hore ayaa kaga jirtaan mudnaanta dadka loogu dadaalka badan inay hirgalaan wasaaradda ciyaaruhu laakiin baahideeda iyo dadka ka qayb gala ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa ka tiro badan miisaaniyadda taasina waa iga waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa wafdiga ka yimid Ethiopia ee nagala soo qayb gala ciyaartan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waadaan darisnahay ay wax badan naga dhaxayaan deegaanka Soomaalidana waxaan leeyahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa insha Allah inuu ciyaarayo dhaqamo is wadaarsan doonaa aad baan soo dhaweynayaa waan